عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير كهرباء المالية وزير كحجين كهرباء المالية وزير الدولة المالية يقدم شغالة مرتشرفته وزير كعصب دما هو سلامتي كل هذا اللي رانو ورن ما يو دانو وكل شغل بقولنا يو حول بنو تعالى بس واحد محايد هو مهندنا قيا وزير كي يوم محايد تيم كي للشقيني هاوشي أي مدة سوق قبتين يو وزير ذي كله كهرباء محايد يقولون وزارة السعودية محايد هو المركز وقارسية halka ay wasaaraddu taagantaa anaguna hore nooga sii wadanaa laakiin anaga hawsha ugu weyn ee wasaaraddeedu waa dakhli soo saar dakhligaasina waxa weeyaan cashuurtii la bixiyo cashuurtii markaa maxay ahayday waxaanu bulshada Soomaaliland u ballan qaadanaa in cashuurta aanu ka qaadana sida loo isticmaalayo ay noqoto sida loogu talagalay ee sharciga ah oo aanay cashuurtaasi noqon wax dhowr qof ku taajiraan taasina waxa weeye ballanqaadka madaxweynuhu mudane Muuse Biixi Cabdi oo bulshada maxay ahayday la galay annagana oo nagu soo magacaabay marka taasa marka maxay ahayday aanu ku dhiirigelinayna dadka cashuur bixiyayaasha waliba dadka faa'iida ee dalka ku faa'iiday ee ganacsiga wanaagsan ka haysta anagu cashuurtu ma doonayno inay noqoto mid ganacsiga hoos u dhigta cashuur competitive oo iyagana aan maxay koritaankooda iyo horumarkooda aan dhaawicin dalkana aynu ku horumarino barigaaynu Soomaaliland bilaabanay maxay idala mas'al calaam halaati ciidankeega noqotiyo booliskeyga haday noqotoba dadkii qaybtay libaax ka qaatay qanacsatadeena ahaayeen oo Allahumma salli ala Muhammad waqti adag xukuumadda la garab istaagay hawlo muhiim ah maantana waxa looga baahan yahay in cashuurtii lagu horumarin lahaa wadooyinka ay isticmaalayaan مدارده استعماليان وحيالها محايدي electricity ما electricity جينا قناعش يقولوا بهاي energy أو محايدي industrialization energy بقول بهاي energy جالسنا محايدي الدولة دي حكومة سيوقع هول قشوا وين العقل حلو قناعش تطلب مركا عشور تبحنا سا وعشور يجل محايدي وفايدين سينا القرآن إن محايدي لقالوه جنو كبره مركا haddii Allahumma salli ala Muhammad ay jirtay waqtiyada qaarkood in dadku ay yiraahdaan cashuurta maxay waxaan u bixinay hebel baa ku taajirayaan ba meel ay maraysa maxay anagu ma hubno taasi ma jirto ninkii maxay cashuur bixi uu nolol xisaabtami karaa cashuurtii halkay martay iyo sida loo isticmaalay therefore cashuurta hal bixiyo ayaan u sheegnaa maxay ganacsatada Soomaaliland iyo dadka ay cashuurta ku waajibtay cashuurta lama koornana waa cashuur fayda oo progressive oo ku xidhan qof iyo maxay karaanki oo aan ku jiibsanayn qofka danyarta ah ka taajirkana aan maxay dhaafin marka waa cashuur ku xidhan maxay hayday qof iyo wax soo saarkiisa marka hadalka ku sii dheeraan maayo Allahumma salli ala Muhammad waxaan u maadnaqayaa shaqaalaha maxay wasaaradda horumarka soo gaarsiiyay anagu sidaad la socotaan go'aamadii ugu dambeeyay golaha wasiirada cusub ka soo baxay waxaan nahay wasiir qaran hab qaran u shaqeynaya idinkuna shaqaale qaran baa tihiin habkaynu ku wada xiriiranaana waxa weeye adeegayaal qaran hab goboleysna kuma wada xiriirano hab qabiilna kuma wada shaqeynano adeegayaal qaran ku wada shaqeynana saasana ma baahan waan mahadsantihiin